beesha waxaa laga yaabaa inay leedahay 3 kursi tusaale haddaan usoo qaato kursigaas ka mid ah kursiyadaas aan u bixiyo reer qurac reer quracaas kursigaas waxaa dooranaya 101 qof oo beeshaas reer qurac ah soo maaha yaa soo xulaya marka 101da 101daas oo beesha reer qurac waxaa soo xulaya duubabka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee beeshaas hoose ee kursigaas kale ee reer qurac ama beelahaas isku tagay ee reer qurac ee kursigaas uu ka dhaxeeyo ayaa iska leh waxaana hubinaya inay odayaashaas iyo duubabkaas iyo bulshada rayidka ee beeshaas waa siidka saa idiin sheegay markii reer qurac laga soo tago oo kursigaas reer qurac uu baxo waxaa la imaanayaa reer qansax soo maaha oo isla jufadii ah jufadaas hoose ee reer qansax kursigaas sidoo kale isagana waxaa 101deeda kursiga lagu tartamaya 101deeda waxay ka imaanaysaa oo soo xulaya jufadaas hoose ee reer qurac ee odayaasheeda duubabka ah dhaqanka iyo bulshadeeda rayidka marka waa casriyeyntii ama udaadejintii doorashada ee hoos awal waxay ku ekeed hal oday ayaa mas-uul ahaa soo mahayn 2016 laakiin odaygaas hadda wuxuu hoostegayaa beeshiisii reer qurac ama reer qansax ayuu toos u hoostegayaa marka hooshii beeshii ayaa mas-uuliyaddeeda loo ballaariyo iyadaa u madax bannaan inay ergadeeda doorato xildhibaankeeda soo baxayana ay meesha ku tartamaan iyada ay doorato cid ku faragelinaysa malaha bulshada rayidkaa kuu soo hartay bulshada rayidka ee reer qansax way ka duwan tahay bulshada rayidka ee reer qurac reer kasto ama jufo kasta oo hoose bulshadeeda rayidka iyagaa iska leh yaa waa bulshada rayidka waa mid ka mid a culamaa udiinka qof ka mid a haweenka qof ka mid a dhalinyarada sports